السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxa kamida Lionel Andres Messi oo jabiyay rikoor uu Cristiano Ronaldo horay u haystay Liverpool oo dhameystirtay saxiixa ciyaaryahan hoogayga Tete kooxaha Sacuudiga oo go'aan lama filaan ka soo saaray iibka Vinicius Junior Amiron oo ballanqaad weyn u sameeyay taageerayaasha United Toni Kroos oo si lama filaan ah ugu shaaciyay sababtii uga fariistay kubadda cagta Newcastle oo lacag waaliya dul dhigtay Alexander Isak Barcelona oo lagu qasbi karo inay bixiso ganaax haddii ay ka laabato iibka Marcus Rashford Real Madrid oo qorsheynaysa inay iska dirto ciyaaryahan Vinicius Junior aynu ku bilownay xidiga reer Argentina Lionel Andres Messi ayaa noqday ciyaaryahankii dhaliyay goolasha ugu badan ee aan rigooraha ahayn taariikhda kubadda cagta isagoo ka sare maray Cristiano Ronaldo. Messi ayaa 2 gool dhaliyay guushii weyneed ay ka gaareen Inter Miami kooxda New York kulan 5 gool iyo gool ku dhamaaday kulan ka tirsanaa Major League ama MLS-ka taasi oo ka dhigan goolashiisa aan rigooraha ahayn 764 gool. rikoorkaasi waxa uu kaga hormaray Cristiano Ronaldo oo isaga hore u haystay 763 gool oo aan rigoora ahayn. Ronaldo waxa uu dheeryahay 167 kulan. Messi ayaa xilli ciyaareedka 2025 si cajiib ku bilowday MLS-ka isagoo dhaliyay 18 gool kana caawiyay 7 kale 18 kulan oo uu saftay horyaalka. rikoorkan cusub ayaa mar kale adkeynaya dooda yuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan kubadda cagta adduunka. kooxda Liverpool ayaa heshiis rasmi ah la gaartay Frankfurt oo ay kula wareegayso weeraryahanka hoogayga Tete sida uu xaqiijiyay weeraryahan lagu kalsoon yahay ee Batangard. labada kooxood ayaa maanta yeeshay wada hadallo cusub oo miro dhala waxaana la isku raacay heshiis gaaraya 95 milyan taasi oo ay ku jiraan gunooyin iyo waxqabad dheeraada. Tete oo 23 sano jira ayaa la filayaa inuu mari doono tijaabada caafimaad maalmaha soo socda kahor intaan u saxiixin heshiis muddo foga oo gaaraya ilaa sanada 2031. xilli ciyaareedka la soo dhaafay weeraryahanka Faransa ayaa wacdara ka dhigay Bundesliga Jarmalka isagoo dhaliyay 22 gool isla markaana sameeyay 12 caawin 48 kulan oo u saftay. Liverpool ayaa Tete u aragtaa weeraryahan mustaqbal ku leh kooxda iyadoo lagu wado inuu noqdo saxiix muhiim u ah suuqa kala iibsiga ee kooxda. weeraryahanka kooxda Real Madrid Vinicius Junior waxa uu waayay fursad mushaharaad qayrul caadi ah oo ku qaadan lahaa kadib kooxaha Saudi Pro League oo ka laabtay dalabaadyada dhaqaale oo waali ahaa sida uu shaaciyay Diere AS. bilowgii sanada 2025 xidiga Brazil ayaa la sheegay inay u badan tahay in heshiis 5 sano uu ku qaato 1 bilyan balse uu iska diiday si uu u doorto sii joogitaanka Madrid. haatan isla kooxihii doonayay inay bixiyaan lacagtaasi aadka u badan ayaa kan laabtay dalabaadkoodii waxaana lagu waramayaa inay mar dambe diyaar u ahayn in dalab intaasi leeg ay keenaan. si kastaba ahaatee warbixintu waxay sheegtay in weli ay jirto xiise xoogan oo kaga imaanaya Sacuudiga iyadoo kooxaha qaarkood ay yihiin kuwa bixinaya lacag 350 milyan si ay u helaan ciyaaryahanka. mustaqbalka ciyaaryahanka ayuu mugdi ku jira kadib markii ay istaageen wada hadaladii la xiriiray kordhaysiinta heshiiska ee Real Madrid. waqtiga ayaana sheegi doona halka mustaqbalkiisa uu ku dambeeyo. kooxda Manchester United ayaa ku laaban doonta magaalada Manchester kadib barbardhac Eber oo ay la gashay Leeds United kulan saaxiibtinimo ee ka dhacay Stockholm kahor inta aanay u dhaafin Mareykanka toddobaadka dambe si ay uga qayb qaataan kulamada isku diyaarinta oo ay la yeelanayaan kooxaha horyaalka Premier League ka dhisan. United ayaa safarkeeda Mareykanka ku ciyaari doonta kulanka koowaad oo ay fooda isdari doonaan West Ham magaalada Jersey dhamaadka toddobaadka soo socda. safarkan ayaa muhiim gaar u ah tababaraha cusub ee kooxda Amiron maadaama uu ka qayb yahay diyaarinta xilli ciyaareedka cusub. dhinaca kale fayaqabka ee farsamada iyo sidoo kale xoojinta xiriirka kooxda ay la leedahay taageerayaasha caalamiga ayaa qayb ka ah safarkan. Amiron wuxuu kalsooni ka muujiyay taageerayaasha United isagoo u ballan qaaday xilli ciyaareedka dambe kooxdiisu ay la imaan doonto isbedel muuqda.
qadka dhexe Real mar hore ugu ciyaari jiray kooxda Real Madrid Toni Kroos ayaa ka hadlay go'aankiisii uu kaga fariistay ciyaaraha dhamaadka xilli ciyaareedkii hore. Waxa uu yiri, waxa ugu fiican waa inaad ka fariisato ciyaaraha adigoo wax qabad leh. Waxaad baxaysaa adigoo dareemaya farxad maadaama aad ka go'aansan tahay adigu. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, intaan la dhigin kayd maadaama wax qabadkaygii ama muhiimadeydii ay hoos u dhacday, waxaan doorbiday inaan howlgab noqdo. Muddo bilo ah ayaan arrintan ka fekerayay, ma ahayn wax subax intaan soo toosay aan go'aansaday. Waxay ahayd arrin aad aan uga fekeray ka hor inta aanan go'aansan. Xitaa sanadkii ka horreeyay waxaan tixgelinayay inaan fariisto, balse ugu dambeyntii waxaan go'aansaday inaan hal sano oo kale aan sii joogo Madrid. Xilli ciyaareed adag ayuu ahaa, laakiin taas waxba kama aysan bedelin fikirkayga inaan ka fariisto ciyaaraha. Nasiib wanaag, waxaan ku guuleystay inaan sidaas sameeyo. Waxaan qabtay xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay waxay ahayd waxaan si fiican u qaban karin. Waxaan tagay anigoo ku guuleystay horyaalka Spain iyo Champions League. Tani waxay muujinaysaa sida Kroos ugu guuleystay in xirfadiisa ciyaareed uu soo afjaro isagoo sharaf leh. Kooxda Newcastle United ayaa la sheegay in si rasmi ah u dejisay qiimaha iibinta ciyaaryahanka qadka dhexe Sweden ee Alexander Isak inta lagu guda jiray suuqa kala iibsiga xagaaga. Wararka ayaa sheegaya in kooxda Premier League ay dalbanayso lacag 150 milyan si ay uga tanaashusho weeraryahankeeda, iyagoo dhowr kooxood ay xiiseynayaan inay la wareegaan adeegiisa. Inkastoo Newcastle ay doonayso inay sii haysato Alexander Isak oo 25 sano jira, maareeyayaasha kooxda ayaa cadeeyay in gebi ahaanba aysan xirnayn albaabka bixitaanka haddii dalab waafaqsan qiimahaasi la keeno. Tani waxay imaanaysaa xilli kooxaha Liverpool iyo Etihad ee Sacuudiga laga leeyahay sheegayaan in si dhab ay u doonayaan xiisaha ciyaaryahankan da'da yarkaasi oo qaab ciyaareed heer sare ah ku soo bandhigay Premier League. Isak ayaa door muhiim ah ka ciyaaray weerarka Newcastle tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda, waxaana suuqa laga dareemayaa loolanka adag ee ku saabsan mustaqbalkiisa. Sida uu shaaciyay Fabrizio Romano, heshiiska amaahda ee Rashford ay kula wareegtay Barcelona wuxuu yeelan karaa ganaax lacageed haddii kooxda Spain ay dhaqan gelin weydo ikhtiyaarka iibsiga ee ku lifaaqan heshiiska. Heshiiskan ayaa la mid ah kii lagu daray Jordan Sancho ee ugu biiray Chelsea, iyadoo marka la eegayo qiimaha Rashford iibka joogtada ah lagu qiyaasay 30 ilaa 35 milyan. Ganaaxan ayaa noqon doona magdhow ay Manchester United helayso haddii Barcelona ay go'aansato inaysan si rasmi ah u qaadanin ciyaaryahanka xilli ciyaareedka dambe. Barcelona ayaa si caqligal ah u dhisaysa heshiiska, iyadoo Rashford ay aqbalayso inuu hoos u dhigo mushaaraadkiisa oo ugu horeeya ku dhawaad 18 milyan sanadkii. Kooxda Catalanka ayaa 70% mushaaraadkiisa dhintay si uu u joogo Camp Nou. Rashford ayaa la filayaa inuu tijaabada caafimaad maro maalmaha soo socota, iyadoo ku dhawaaqistiisa rasmiga la sugayo. qaab dhismeedka maaliyadeed ee heshiiskan ayaa turjumaya sida Barcelona ay ula tacaalayso xaaladaha dhaqaale ee saaran, iyadoo weli isku dayaysa inay xoojiso safkeeda xilli ciyaareedka. Warbixin cusub oo ka soo baxday Sport ayaa daha ka rogtay in kooxda Real Madrid ay ka fiirsanayso suurtagalnimada ay ku iibinayso Vinicius Junior xagaagan kadib hoos u dhac ku yimid muuqiisa iyo qaab ciyaareedkiisa guud ahaan xilli ciyaareedka. Vinicius oo 25 sano jira ayaa lumiyay doorkii weynaa oo ku lahaa kooxda xilli ciyaareedkii 24-25. inkastoo uu qayb ka qaatay 58 kulan, haddana wuxuu ku guul daraystay inuu saameyn muuqata uu ku yeesho kulamada waaweyn, isagoo hal gool keliya dhaliyay wareegga bogbaxa ay la ciyaareen City, Athletic Madrid iyo Arsenal, wuxuuna gool la'aan ahaa 10kii kulan ee ugu dambeysay La Ligaha. inkastoo uu dhaliyay 20 gool isla markaana uu caawiye ka noqday 14 kale, haddana qaab ciyaareedkiisa ayaa ahaa mid liita kulamada muhiimka. Isbeddelka dhanka tababarka iyo keenistii macallimu Xavi Alonso iyo imaanshiyaha Mbappe ayaa sidoo kale kordhiyay culayska. Wadahadallada qandaraaska cusboonaysiinta ayaa istaagay, iyadoo Vinicius uu doonayo mushaaraad ka sarreeya kan Kylian Mbappe. dhanka kale kooxo badan oo Sacuudiga ayaa diyaar u ah dalab gaaraya 350 milyan.
Fiorentina Perez ayaa diyaar u ah inuu dhageysto dalabaadyadaasi. Vini hadda ma aha xiddigan la taaban karin oo kooxda Madrid.